Saacadihii aynu ka soo gudubnay, qaar ka mid ah dadka baraha bulshada isticmaalo ayaa intooda badan waxay isla dhex marayeen fiidiyow argagax leh oo dadka baraha bulshada intooda badan ay ka dhidhinayeen. Fiidiyowgan waxaa laga dheehan karaa xaalad adag oo ay ku jirto gabar Soomaaliyeed, taasi oo ay ka muuqato dhibaato aada u xoogan haddii ay noqon lahayd isticmaal maandooriye iyo sidoo kale in ay u muuqato inay tahay la hayste, dhibana ay u tahay wiil tiktoka kusoo galo xuseen xasan gaabow. Haddaba wiilkani ayaa waxaa agagaarkiisa ama barbarkiisa ka muuqataa gabar aada u da-yar oo Soomaali ah, oo si toosa loo arkayo in gabadhaasi ugu muuqato mid aada u sarqaansan, cabsan, daroogo ay aada uga muuqato, sidoo kalena gabadha ay garabkiisa ku jiifto ninkaasi kusoo gala barta tiktoka xuseen xasan gaabow. Mana ahan fideogii ugu horreeyey oo ay kala soo muuqato, waxaanay u badan tahay in labadooduba ay hal qool ay isla joogaan, ama iyaduna qeybta backgroundka laga maqlayo cod rag kale oo isna guriga la jooga. Inankaasi goobta ay ku caweynayeen kulley lama garanayo, laakiinse waxaa loo maleynayaa in magaalada muqdisho ay ku nool yihiin. Haddaba dadka baraha bulshada isticmaalo ee aadka uga falceliya waxaa ka mid ah cali aadan muumin. Waxa uu qoraalkiisa haddii aan soo qaato ku yiri: la wadaag ciidanka Soomaaliyeed si ninkan loo soo xidho oo gabadha masaakiinta looga soo badbaadiyo. Ninkan oo tiktoka magaca xuseen xasan gaabow ku isticmaalo ayaa dhibaato xoogan ku haya gabar aada u da-yar oo Soomaaliya. Wuxuu si toos ah loo arkaya oo u siinaya maandooriyo, isagoo markaasi kadibna ka duubaya muuqaal uu ku faafiyay bartiisa tiktoka. Waxaa habboon in booliiska Soomaaliyeed ee jooga xamar in ay ka qaadaan ninkani tallaabo waafaqsan sharciga iyo in wax laga weydiiyo dhibaatada uu ku hayo gabadhaasi yar ee masaakiinta buu yiri. Waxa uu yiri haddii ciidanka arrintan ay ku dhaqaaqaan waa tallaabo loo qaaday dhanka badbaadinta haweenka oo ah birimageydo ilaalin joogta u baahan. Sida ugu maqaalka wuxuu yiri ninkani wuxuu jooga degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho. La wadaag ciidanka Soomaaliyeed si loo soo xidho oo gabadha masaakiinta looga badbaadiyo. Cali aadan muumin ayuu ahaa. Bal muuqaalkan ayaana dadka intooda badan aada u dhibsadeen xaaladda adag ee gabadhaasi ay ku jirto, wiilkan dhibanaha ay u tahay, ay u qafaalan tahay, ee ku qasbaya in ay isticmaasho daroogo aada u weyn oo aada u daran oo halis ku ah. Ayna u muuqateen daroogada ay gabadha ka tambadisay. Fiidiyoyo kalena way jiraan oo sii tixraacay profilkiisa ayaan galay qeybta tiktoka. Fiidiyo badan ayuu gabadhaasi kasoo duubay. Fiidiyoodaasi intooda badanna xaalad aan la fiirsan karin ayay gabadha ku jirta. Wiilka isagu kolley daroogada waa uu isticmaalayaa, laakiin gabadha sida muuqato ay ka tambadisay, waxayna u badan tahay in gabadhan uu ku qasbayo waxa aysan dooneynin in ay isticmaasho, balse mustaqbalkeeda uu uga ciyaarayo oo ay u muuqato inay la haysto u tahay oo isaga gacanta ay ugu jirto. Bal kolley ehelka gabadhaas yaqaana ama dadka ehelkeeda garanaya ama iyada si toosa u garanaya waa aqoonsan kara wejigeeda ee reer Muqdisho ah. Wax ka codsan lahayn in fariintaasi ay gaarsiiyaan laamaha ammaanka si tallaabo sharci waafaqsan looga qaado ninkani gabadha soo xareystay kula kacayo habdhaqankan aan habbooneen gabadhaasi Soomaaliyeed, marna walaashiis noqon karaysa, wax aan qurux badnayn oo fool xunna markaasi sameynaya. Kolley magaalada Muqdisho dhacdooyinka noocan oo kale ah waa ay ka jireen, oo ma ahan markii ugu horreysay oo la arkayo fiidiyoyo kala duwan. Habdhaqanada noocan oo kale ah, gabdho rakaato lagu haysto oo laga dalbanayo in baad ay bixiyaan ama lacag laga qaado ama loogu goodinayo in baraha bulshada lagu baahinayo. Laakiin tani waa mid si toosa kolley indhuhu ay markhaati ka yihiin, dad badan ay arkaan in inankani ninkani uu fiidiyowga gabadha uu kasoo duubayo uu ku faafinayo social mediaha, sidoo kalena uu muujinayo dhibaatada xooggan ee gabadhaasi uu ku hayo. Kolley ilbaxnimadii ayaa halkaasi ka gashay. Qaladka uu ku jiro waa qalad weyn, haddana isaga kiiskiisa cadeen uma baahnee, isaga ayaa gacantiisa markaasi booliiska ama isku baxargelinaya oo gabadhaasi laga soo furto unbaa haray. Waa halka gabdhaheena Soomaaliyeed magaalada Muqdisho xaalkeedu sidan isu bedelaya marba marka ka dambeeya. Waxyaaba argagax leh oo markaas aada u falxun laga soo sheegay. Kiisas badan waa ay jireen, gabdho badan oo iyagu fiidiyoyo galmo ah laga duubay, gabdho badan oo sidan oo kale dhibana ugu ah rag Soomaaliyeed oo aada uga xadgudbaya jismi ahaan, maskax ahaan, mustaqbalkoodana
baabi'inayo. Daroogada isticmaalkeeda halista ay leedahay, qof waliba oo aadana waa uu garanaya dhibaato caafimaad inay leedahay. Khatarta caafimaadka qofka aadanaha ay ku tahay daroogadu aad ay markaasi ugu badan tahay. Waxaan arkay kulley garoowe oo iyana booliiska iyo laamaha kala duwan ee dowladda ay gacan bira ku qabanayaan, dagaal adagna ay kula jiraan dadka maandooriyaha ka ganacsada ee ku nool Soomaaliya qeybaheeda. Kulley daroogadu Soomaaliya waa ay ku jirtaa oo meelo badan ayaa lagu isticmaalaa. Khamri haddii uu noqon lahaa, daroogada kaniiniyada la isticmaalo, cirbada la isu mudo, waxyaabaha kala duwan, meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ayay markaasi dhacdooyinkan ka jiraan. Kulley qaabka lagu soo geliyo iyo sida lagu soo dusiyay ee dadka isticmaalaya ee dadka ka ganacsado, dowladda ayaa la weydiinaya. Waana mid u baahan in dowladda ay hal dhinac uga soo wada jeesato. Dadkani ummadda baabi'inaya, jiilka cusub ee soo kacaya, mustaqbalkooda cirib tiraya. Waa dhib ina daashaday, waa dhib markaasi innaga mustaqbalkeena sii dabar goynayo, waa aanu habbooneen. Ummadina halkaa ay maanta maraysaa, iyadoo cabashooyin badan ay jireen oo gabdhaha Soomaaliyeed ay ka muujinayeen ragga Soomaaliyeed fiidiyowyada aan anshaxayn ee muddooyinka ugu dambeeya baraha bulshada qabsanaya, oo lagu fadeexeynaya gabdhaha Soomaaliyeed. Ay jireen dad soo baxaya oo la sheegaya inay intooda badan u tafaxayteen in karaamada ay ka qaadaan gabdhaha mustaqbalkooda si aanu qurux badnayn ay ula dhaqmaan, iyagoo aan ka soo qaadaninba inay noqon karaan gabdho walaalahooda, sharaftooda ay tahay inay ilaaliyaan. Laakiin dadku waxay leeyihiin bal muxuu siiyey gabadhan. Ninkanna dadku waxay leeyihiin rag badan oo Soomaaliyeed ayaa si xora magaalada Muqdisho ugu nool. Dadkaasina tallaabo in laga qaado ayay ahayd, oo dembiyadooda ay caddaayeen, oo reer hebel ku badbaadaya sidaas iyagu loogu garaabayo oo aan wax sharci ah u qabanaynin, qaarkoodna si aanu markaasi munaasab ahayn ku sameynaya gabdhaha Soomaaliyeed. Kulley draagiska gabadhaasi maskiinta ah ee la siiyey, ee lagu qasbay, iyo dhibka wuxuushnimada ah ee taalla halkaasi, dadku indhahoodu caad ma saarno oo ay arkayaan. Haddaba gabadhu ogaalkeedu waa ay beeshay, daroogada ay cabtay, iyo maankeeda oo gebi ahaanba maqanba gabadha maskaxdeedu, sida fiidiyowga ay markaasi baraha bulshada. Dad badan waxay leeyihiin labadan waa laba cabtooy, waa la yaqaana. TikTokgiisa hore ayuu sidan oo kale ugu isticmaali jirin, mana jirin wax tallaabo horey looga qaaday. Bal waxaan leenahay arrintan bal ha lagu dhiirado oo waxa laga qabto. Waa dhaqan aanu qurux badnayn oo sawir qaldan inaga muujinaya, inaga gudbinaya jiilkeena khatar ku ah. Inta ayaan kusoo gabagabeynaya muuqaalkan. Waad mahadsantihiin.